nabadgelyo korkaaga ha ahaato kusoo dhawow daawade barashada xisaabta magacaygu waa Shiine Gestir waxaan caawa videogan gaaban ku baranaynaa hordhaca xisaabta jajabta inagoo falanqeynayna gorfaynayna oo waliba qeexayna waa maxay jajab what is a fraction culimada xisaabta markii ay qeexayeen waa maxay jajab waxay ku qeexeen jajab inuu yahay qayb ka mid ah walax idil jajab waa qayb ka mid ah walax idil fraction is a part of a whole object waa maxay marka walax idil waxa muhiim ah in isla faano waxa ay tahay walax idil waa shay marka uu yahay mid dhameystiran waa shay marka uu yahay mid dhameystiran oo aan la qaybinin halkan waxa kaaga muuqda xabad pizza oo sideedii u dhameystiran oo aan la qaybinin oo aan la jarjarin sida darteed xabadan pizzada ah waxaan u tixgelinaynaa inay tahay walax idil halkan waxa inooga muuqda khudaar meel taala oo ka kooban xabad muus ah xabad liin macaan ah iyo xabad tufaax ah khudaartana waxaan u tixgelinaynaa inay tahay walax idil halkan waxa kaaga muuqda family ka kooban hooyo iyo aabbo iyo saddexdoodii caruurta ahaa familkan waxaan u tixgelinaynaa inuu yahay walax idil halkan waxa kaaga muuqda fasal ay ka kooban yihiin gabdho iyo wiilal fasalkana waxaan u tixgelinaynaa inuu yahay walax idil daawade waxaan rajaynayaa inaan isla fahnay walax idil waxa uu yahay walax idil waa shay marka uu yahay mid dhameystiran oo waxba ka maqneen haddaba waxaan u gudbaynaa fraction oo aan soo sheegnay inuu yahay fraction is a part of a whole object jajab waa qayb ka mid ah walax idil tusaale ahaan marka halkan waxaa inooga muuqda xabadeeni pizzada ahayd oo loo qaybiyey 4 qaybood jabkan waa fraction ka mid ah pizzadeena jabkan waa fraction ama waa jabkanna waa fraction ama waa jab ka mid ah pizzadeeni dhameyska tirneed jabkanna waa jab ka mid ah pizzadeeni dhameyska tirneed jabkanna sidoo kale waa jab ka mid ah pizzadeeni dhameyska tirneed waxaa loo qaybiyey 4 jab pizzadeeni ama 4 fraction haddii uu markaa saaxiibkaa cuno jabkan iyo jabkan sidee baad xisaab ahaan ugu muujinaysaa waxaad dhahaysaa saaxiibkay wuxuu cunay 2 jab labadan jab waxay ka mid yihiin dhammaan pizzada intay ka koobneed waxayna ka koobneed 1 2 3 4 jab ayay ka koobneed 4tan halkan aad kusoo qoraysaa kan waxaa la yiraahdaa luqadeena hooyo sareeye kan waxaa la yiraahdaa hooseeye luqada ingiriiska waxaa lagu yiraahdaa lambarka sareeyaha ah nominator ka hooseeyahana waxaa lagu yiraahdaa denominator waxaan rajaynayaa inaan isla fahnay waxa uu yahay fraction sidoo kale waxaan u gudbaynaa tusaalaheena kale si aan fahankeena usii ballaarino halkan waxaa inooga muuqda khudaartii ka koobneed muuska tufaaxa iyo liin macaanta markii ay wada yaalaan ama ay wada joogaan waxaan dhahnay waxaan u tixgelinaynaa inay yihiin walax idil xabadda muuska ah waa fraction ka mid ah walaxdan idil haddii uu saaxiibka xabaddan muuska ha cuno sidee baad xisaab ahaan ugu muujinaysaa waxaad dhahaysaa xabadda muuska waxa weeyaan waa 1 xabadda muuska ah waxay ka mid ahayd walaxdan idil oo ka koobneed 3 1 2 3 markaas 3na ku soo qoraysaa lambarkan waxaa la yiraahdaa sareeye saan soo sheegay kanna waxaa la yiraahdaa hooseeye sidaas ayaa waxa loogu muujiyaa fraction ama xisaab ahaan waxaan u gudbaynaa tusaalaheena saddexaad halkani waxaa inooga muuqda qoyskii yaraa qoyskan wuxuu ka kooban yahay 5 qof
shanta qof imise ayaa dumar ah? waxaa dumar ah hooyada iyo gabadheeda. haye hooyada iyo gabadha walaxdan idil waxay ka yihiin labo. sidee baa markaan xisaab ahaan ugu muujinaynaa? waxaan dhahaynaa hooyada iyo gabadhu waa laba qof, waxayna faamilkuna waa 1 2 3 4 5 waa 5 qof. saas ayaad xisaab ahaan ugu muujinaysaa. waxaan kaloo tusaalaha afraad kusoo qaadanaynaa fasalka ay ka kooban yihiin gabdhaha iyo wiilasha. fasalku marka ay gabdhaha iyo wiilasha isku jiraan waxaan u qadarinaynaa ama aan u tixgelinaynaa inay yihiin walax dhammaystiran. tirada gabdhuhu waa 5, tirada wiilashuna waa 10. markii dhammaantood la isku daro waa 15 arday. 15ka arday 5 baa gabdho ahee sidee baan xisaab ahaan ugu muujinaynaa? waxaan dhahaynaa gabdhuhu waa 5. haye dhammaan ardayda markii la isku daro macala gabdhahana waa 15. saas ayaad u qoraysaa oo aad xisaab ahaan ugu muujinaysaa. daawade waxaan rajaynayaa inaan isla fahnay waxa uu yahay fraction. inta aan video la mid ah ku kulmi doonana waxaan idiin si dhaafayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.